waryaadahana halo waa qaybtani waa qumayo xor xildiid qaybtani waa qaybtii ugu dambeysay sheekada idinka sheekeynayay horta ma ogtihiin xabashadan xuma uraysaa imika soo socota ee Soomaalidii dab qabadsiisaya waa fuleydii ay Soomaalidu eryan jirtay imikana waxa ka socda maaragtay Palestine iyo area-da askarta lagu adeegsado ee dadka loo soo diro waa waxaan wax magaratada ah xabashada ee uskaga aha naagahooda kuwaas baa lagu soo diraa ciyaalka yare iyo hooyooyinka masaakiinta ee Falastiiniyiinta marka kuwiina inagu waynu daba maxaa la yiraahdaa daba dhilif baynu noqonaynaa fuleyda wallahi billahi way arki doontaan waxa ku dhaca but anyways sheekadii waxaan ku dhameeyay anigoo ka hadlaya so waxaad leedihiin wiil dhan oo la soo tababaray oo ka tirsan the secret service-ka madaxtooyada Somaliland oo waxyaalo badan la soo fahansiiyay oo maxaa la yiraahdaa experience badan soo leh ayaa urin kari waayay carbon monoxide ama garan waayay baad leedihiin soo maaha taasi waa aqli ciyaal dadka la rabaa horta in la yiraaho la isku hor keeno habar awashan iyo maxaan ku yiraahdaa garxajiskan ama habar yoonistan oo deeleen wala ogyahay taariikhdooda waligood habar yoonis iyo habar awal way tirtami jirteen reeraha kalena waxay haayeen reer ama soo gelin siyaasadda war la idin kama hayo laakiin labadan baa la rabaa horta in la isku dhufto marka labadan la isku dhuftana free game bay noqonaysaa Somaliland ma fahanteen because imika maxaa la leeyahay haddana waxa la yidhi arab baa la laynayaayo waxa lagu laynayaa jigjiga iyo Soomaali galbeed baa lagu laynayaa arabo cagdheer iyo maxaa la yidhaahaa ogaadeen baa laynaysa war goorma arab la layn jiray goorma wax lagu fali jiray waxani but then again habartii Mother Teresa ee wada caabudaysiin sharmuutadii u shaqaynaysay Vatican iyo Catholic Church u shaqaynaysay adna aadan way ku jirtaa sheekada iyaduba taas marka wiilkani waxbuu maqlay waxbuu fahmay sheekadana 90% waxay u eg tahay wuxuu arkay wuxuu maqlayba gabadha inuu la wadaagay wiilashan leeyahay asluubta ka tirsanaa iyaguna midna accident ku dhintay midna si kale ku dhintay wiilashana ila meesha waa meel yare waa la is yaqaanaa inuu wax u sheegay intii oo dhan baa laga saaray marka oo la yidhi dadka maaragtay afka la isku geliyo marka waxbuu maqlay waxbuu ogaaday tan kale rabo inaan ku daro how is it possible 6 qof intay gaas furteen una qofka kale xitaa oranayn waxba ii soo uraya 6 qof baa qaahira ku geeriyooso waa la sacrifice galay oo waliba reer burca ah and the thing is what doesn't make any sense is Masar tan imika iyo sirdoonkeedan iyo badan ay ku dhex jirto Masar Ethiopia Masar iyo Turkigu iyo Yahuudan waxaan oo dhan game bay soo wada ciyaareen waxa la yiri Soomaaliya sidaynu u jeedinaa sidaynu iyo already way isku maqan yihiin Soomaalidana sidaynu u kala jajarnaa waxa la sameeyay waxa la yiri Xasan Sheekh waxa tiraaha masaaridan la saaxiib noqonaya oo masaariban keenaya si ay ku kala u qayliyaan ma fahanteen waa sheeko la soo abaabulay markaana ay tiraaho Ethiopia may Masar ma iman karayso because Masar waan haysa waligood Ethiopianku ay dadka ku xuxsayn jireen oran jireen niilkan xidhayna anagayna soo martaa waligood way ku oran jireen intaas mala sanaawi iyo balaayooyinkii hore dad u sheegtid waligood bay sheekada yaqaaneen webigaan xidhayna daan baanu samaysanayna inay dadka waxaas ku xaabiyaan webigan iyo daamkana horta tog dheer weey wuxuu Soomaaliya hoos martaa wax alli waxay control gareynayaan dadkani ma jirto waxaas ay ka shaqayn jireen xitaa haday imika daam ka sameeyaan ay biyahan xidhaan Suudaan markay xidhaan meesha daad baa qaadaya oo Suudaan xitaa waxay noqonaysaa meel kulli biyuhu ku soo batacaan daadku ay iska qaban kareen marka shayaadiin weey xabashadan xuma uskaga wallahi billahi meel baan ku soo akhriyay dadkan maaragtay dhimanka ay maskaxda ka dhiman ee iska doqomaha qaarkood Mongolian baa la idaahaa hondisku waxay yiraahdaan Moghol berigi hore imika waa la bedelay magaciisa imika Mongoliyiintu ama Mongoliyiintu dad ethnic group ay u naqaanaa laakiin waxa ahayn dad idiot oo maskaxda u dhiman yihiin oo wad aragtaan dadka down syndrome ka qaba inay isku wada eg yihiin iyo maaragtay kuwa Mongoliyiintu saasay iskugu eg yihiin
group kala jirto waxa la yiraahdaa Ethiopians baa la yiraahdaa iyaguna saasay isku wada eegin waa wax yar gaaban oo nasakhiina oo dhimina marka wixii un baa imika inaga rabaan inay qabsadaan inay noo tiriyaan ay noo booteeyaan bal waxa u fiirsada ku ugu geesisanaa ethnic groupka Tigrida la yiraahdo way weligood bay kuwaasi Soomaaliyeed eriyan jireen oo kuwaasa kaliya dagaalama imikana buurahay galeen waa dadkii boqortooyadan lagu sheegayay waxaan oo dhan ka riday meesha iyaga iyo Soomaalidu markay iskaashatay wallahi bilaa Tigridii baa dadka lagu soo celinaya Tigrida taqaanay and so dad 6 qof oo family dhan oo burca ka yimid ayaa Masar gaas lacabsi dan imikana waa arkaysa sheekadii ka socotay oo ku saabsanayd gaasta Hargeysa oo labadan meel kale lagu soo dilay markaas gaariga la soo fadhiisiyay dadku say isku galaan okay say isku dagaalaan habar awal iyo habar Yunis ilaa labadan way waxay isariyanayaan meesha waqooyi waa laga soo fikiray dad badan baa ku dhex jira marka la leeyahay odaygan cirro waa dimension way wuxuu og yahay ma jirto niman kala wada sheekadan hoosta ka wada isagu halkaas uu fadhiyaa uu iska qoslaya qofku markuu dimension noqdana uu iska qoslaa waa aragtay si iskaga qoslo xitaa suu markuu wax akhriyayo ereyadii ma fahmayo uu iska akhriyaya in meesha la isticmaalo habar Yunista lagu xumeeyo lagu fashiliyo labadan la iskalaan ayaa meesha loo keenay siyaasadda dhan Soomaaliya waa intaa way surdonimadu intuu raadinayo waa intaas buu fiirsanaya waxa meesha ka socdo baad u fiirsanaysaa waa arkaysaa game kolba meesha loo kubadda loo tuurayo maxaa kale rabaa inaan ku daro oo ku saabsan sheekadan basically all of this waa waxa laga soo shaqeeyay so kaftanka siyaasadda xalay toole baa dhageysanaya oo magaciisi علي حريرو هذا يدي وارتبتي أشياء كوجو شيء ما عندي دوي تولة أي ودعدي أو ضدك وحيكون لبدو قف وحيكون إنتين exhaust carbon monoxide كتمد exhaust كجاريجا أي يكون إنتين والله أو بالله word for word سدوا علي حريرو وشيء كي ما ركتي شيء كذا ويدي سدنا ودعدي ayuu ninkii coroner ka hayay hospitaalka Hargeysa ku shaqeynaa ayuu qaatay xitaa waxay isagu ku dalay ma jirto wixii uu yiri uu kasoo maqlay Ali Hareer ayuu keenay marka you can in a way you can say Ali Hareer aba safe gareeyay ninkan because hadii kale way fashilmi lahaayeen waxay mayd ka baadheen ma jirto waxay autopsy ku sameeyeen ma jirto kasoo xid waxaanu ku xidhanahay hospitaal Rome ku yaala Somaliland iyo Talyaaniga iyo Rome goorma xidhiidh isla lahaayeen hadii oran lahaa Ingiriiska meel Ingiriisiga ama Jarmalkaan xidhiidh la yeelanahay la gareyba haduu xidhaayo wadamada Carbeed la garay laakiin Somaliland iyo Rome goorma isku xidhan yihiin ma ba isku xidhnaan karayaan but then again you have your maamada qaranka shaydaamada qaranka ayaa iyada Roman Catholic u shaqeysa iyada ku xidhan waa iyada way marka war wax u fiirsada laakiin word for word bad uu qaadanaya word for word buu u qaadanayaa oo u soo gudbinayaan sidana dhacday because meel bay ka maqleen wallahi xalay toole markaan maqlay waxaan yiri way no like I said anigu Ali Hareer waxba ma eed ma saarayo but I'm just saying sheekadu sheeko isqabsan karaysa ma aha ma isqabanayso sheekadani waxdaa ka siiya ma fahanteen oo wala idinku soo maqan yahay ama Somaliland ahaw ama Soomaaliya ahaw wala idin soo wada tashtay anyways waa insaan